dumarkii waxay fureen inaan makiinad doono ilmaha yar xundurta loogu gooyo makiinadii dhowr gaadhi baan joojiyey dadkii raggii baabuurka la socdayna waan weydiiyey adu qaar baa midiis ka soo saaro toore waxaan ku hortoore lama ogole inkastoo aanan jeclayn gaariga dushiisa ku umusho haddana de qadar ilaahay weeye mataanihii nasiibka badnaa tani waa sheekada hooyadii ka soo safartay baadiyaha si ay adeeg caafimaad ugu soo doonato magaalada Hargeysa balse bartamaha socdaalka iyo safarka hooyadan waxa uu noqday mid naxdin iyo amaka ku abuuray dadkii rakaabka ahaa ee ay wada saarnaayeen gaadhiga ay ku safrayeen oo ahaa nooca loo yaqaano baska kadib markii hooyadaasi ay ku dhex foolatay baska oo marayo meel cidlo ah oo u dhaxeeya degmada Shiikh iyo magaalada Berbera daqiiqado naxdin iyo talo ay ku jireen dadkii saarnaa gaadhigan baska ah oo ay leedahay shirkadda Bari iyo Galbeed waxa go'aan si wada jir u qaatay dadkii gaadhiga saarnaa iyo waliba darawalkii oo dhinac gaadhiga uga saaray wadadii ay marayeen waxaana darawalkii uu dibadda uga rogay gaadhiga dhammaanba raggii la socday halkaasi oo ay isugu soo hadheen haween keliya oo iyagu qabtay shaqada caawinta iyo ka umulinta hooyadan waxaana beska dhexdiisa ku dhashay mataanka koowaad oo ah Siciid looguna magac daray darawalka gaadhiga waday haddaba barbilowga qisadan cajiibka iyo dhalashada mataanaha nasiibka badan aan ka bilowno darawalka gaadhiga waday iyo halka uu ka soo istaaray waxaanu ka soo baxnay magaalada Burco saacadu markay ahayd 8:00 baan soo baxnay marka qolo ehelkeeda baa waday tiirkii baa loo gooyay rakaabkii way ka mid noqotay waxa rakaabkaygu ilaa adigu dhowr iyo 40 inta u dhaxaysa ayuu ahaa adigu safarkii sidii baan ku soo galay alxamdulillah aan ku soo baxnay markaanu marayno Berber agteeda meel bannaan ayaa inta lagu dhuftay ay xumadu ku bilaabantay xanuunkii markuu ku bilaabmay inantii aan aragnay inaan xaaladeedii aan goormaad ka warhesheen idinku xaalkeeda waxay soo wargeliyay markaan burburin yar soo jira inankan Jamaal ee ag fadhiya oo ila socda markaa ayaa igu Siciido gabadh baa foolnaysa kursigeeba fadhidaa baan ku wuxuu 24 iyo 23 bay fadhidaa waxaan ku wada bal xaaladeeda la soco mikrofoonkan marka dadka kala hadlo dumarkii baan ku bilaabay ku bal xaaladda la socda haddii aynan gaarsiin karin magaalada si aanu dhaxda aynu ugu joojino dabadna dumarkii waxay dhahan soco gaadhiga speedkii baa soo kordhiyay waan soo kaxeeyay adoo wadadii oo meel godadla baan soo galay xanuunkii baa ku siyaaday dumarkii markaa ila hadlay ugu Siciidow meel baarkan inoo dhig baarkii baan galay raggii baan baabuurkii ka dajiyay raggii markaan baabuurkii ka dajiyay waxay noqotay inaan dumarkii iyo umushi aan u kala tago alxamdulillah adoo inaan badhashay halkii ku dhashay kadib waxay ku yiraahdeen dumarkii waxay fureen inaan makiinad doono ilmaha yar xundurta loogu gooyo makiinadii dhowr gaadhi baan joojiyey dadkii raggii baabuurka la socdayna waan weydiiyey adu qaar baa midiis ka soo saaro toore waxaan ku hortoore lama ogole oo intaasoo magaranaysa ay feras ba keentay adoo baabuurtii waan joojinay makiinadii anagu raadinayna ay war kala hadana dumarkii igu soo celiyeen oo ilaahay Siciido makiinadii jooji ilma labaad baa soo socday markaa waxay noqotay inaan anagu go'aan qaadano gaadhi baa jira xafiiskaygu leeyahay oo Berbera jooga oo shirkadda Bari iyo Galbeed adeega xafiisyadeeda gaadhigii baan telefooninay gaadhigii markaan telefooninay uu naga hor yimi sidii baan nagu soo dhaqaaqnay anagoo aayar soconayna si aan isu soo gaadhno markii gaadhigu idin ka hor yimi ee gaadhigii kale aad ku wareejaan sidoo xaalku noqday xaalku wallahi markaa waxa weeyaan khadri isma ogeyn markaa labaad isma ogeyn khadri waanu qaadnay annagoo sidna ayaanu gaadhiga saarnay oo aniga iyo inankan gaadhiga la socda iyo qofka gabadh kale oo iyaduna caawinaysay ayaa taksiga saarnay halka dambe taksiguna shirkadu ka mid ahaa magaaladii waxaan ku gaarsiinay muddo adigu ilaa 25 mirir ayaa lagu gaarsiiyay dadkii marka xafiiskii geeyay wixii biyaan u baahnayn iyo ma garanaysaa ay dumarkii faraxalka doonayeen markii aan halkii kaalintii shirkadu lahayd aanu geynay
ee ay dumarkii isnadiifiyeen horaan u soconnay waxaanu tagnay terminaalka berbere ee loo dhisay baabuurta intii aan terminaalka ku jiray baan 2 goor garaacay marna inantii la socotay baa iga qabatay telefoonka marna waxaan garaacay inankii taksilaha haddana wuxuu ii sheegay inaan dhalatay anigoo haddaba 10 mir baan berbere dhex joogaa marka hadda waa alxamdulilah kula day caafimaad qabto adigu darwal ahaan maadaama dee dhacdada xanuunka badan leh marna farxadda marna murugada ay ku soo martay ugu dambeyn ay guul ku dhamaatay oo labadii caruura iyo hooyadood bay caafimaad qabeen dareen ahaan adigu maxaa dareemay wallahi anu farxad baan dareemo dee shirkaddu 70 gaari bay leedahay bariga galbeed 70 gaari dee gaari nasiib u helay in ay umataana ku dhashaan ama hal qof ku dhasho dee maba jiraba marka aniga farxad gaara bay tahay oo markii labaad waxaan ka yimi xilifan ku dhow dabadeetana maxay tahay burcaan muddo 2 habeen joogay dabadeetana waan ka soo baxay subaxdii dambe baskaasan soo raacay magaalada Hargeysa waan ku soo socday jidka dhex markaan soo socday ayaa nabar ku yeelay dee saas xaaladii ku dhamaatay marka ma ka warqabtay adiga fooshaadu inay dhowdahay may walaa kama warqabin waan iska yar xanuunsanayo markii walaalo aad baska ku dhex foolatay bal dareen ahaan maxaa dareentay walaal maadaama meel dhakhtareen aad joogin safarna aad ku jirtay wallaahi walaal ilaahay baan iska aaminay dee waa sida caruurta bal magacyadooda walaa saaraya Siciid Siciid baan ugu magac daray walaa Siciid baa ugu magac daray waa inaan halkaa fadhiya gaariga darawalka wada ayaad ugu magac dartay inantanu iyadoo uur yara bay timi halka dhurowre dhakhtarkaa la bariyey dhakhtarkii wuxuu sheegay inay mataana sido markay bil iyo waxoogaa joogtay ayay noqotay sidaasaa horta lagu ogaa inay mataana sido dabadeedna inantii sidkeedii haddaba reer miyiba aydoo intuu taariikhdeedu tahay waxba kama garanayn dabadeedna markay soo dhowaatay ayaanu nidhi maadaama ay mataana sido meeshay joogtaana miyay tahay inantii ha la soo diro dhakhtarka say ugu umusho gaalada ha timaado dabadeed saasay kaga soo boqoshay gurigeedii markaana way caafimaad qabtay waxoogaa hadda iska joojooca mooyide dabadeedna barco markay timi 2 habeen iyo 2 may waxay nasatay ayaa gaariga soo raacday kabacdina waa taa ku umushay inta badan dhacdooyinka noocan ah ayaa gebi ahaanba ku yar bulshada dhexdeeda in lagu arko waxaanu gudaha u geli doonaa gaarigii ay ku dhex dhasheen nuunayaasha yar iyo weliba kursiga ay fadhiday maamadu ila socda daawadayaal waxaanu ku dhex jirnaa gaarigii ay maamadani ku dhex foolatay isla markaasina rakaabkii iyo darawalkii gaariga saarna ay ugu gurmadeen darawalku bal wuxuu tusi doonaa kursigii ay maamadani fadhiday kursiga ay fadhiday waa kan 13 iyo 14 labada kursi bay ahayd haa halkaasuu ilmihii horeeyay ku dhashay alxamdulillaah dee waa caafimaad khayr baan u rajaynaynaa hadduu ilaahay idhaahdo daawadayaal kursigana fadhiya waa mid ka duwan gebi ahaanba kuraasida kale ee baska waa kursigii uu ku dhashay mid ka mid a mataanaha ay maamadii ku dhex foolatay baskan oo ah Siciid isla markaasina loogu magac daray darawalkii isagu baskani waday waxa weeye Khadra Yuusuf oo runtii ka mid ah macaamiishayada warbixinteeda runtii waxay soo siiyay ama shirkadda la soo socodsiiyay Siciid oo ka mid ah runtii darweynta shirkadda muddadii shirkaddu ay jirtayna la shaqeynayeen runtii aad u khabiira sida uu sheegay oo runtii dhacdo hore ay idin sheegay dhacdo hore oo gaarigiisa ka dhacday runtii uu si fiican ayadana u maamulay warbixintaasi anaga waxayna soo siiyeen markii hawshu ay dhacday ka maamul ahaan in gaarigii runtii ay ku dhex foolatay macaamiisha gabar ka mid ihii markaa runtii sida ugu wanaagsan ee ay ula macaamilayaan inay ugu naxariista badan ula macaamilaan baan kula hadalnay wax kasta oo runtii in dumarka ay meesha markaa jooga ay de kulley dumarku way kala khibrad badan yihiin maadaama oo inay dhakhaatiir saarnayn waxa laga yaabaa laakiin in dadkeenu de waxa iska jira dhakhaatiir dhaqameed markaa kulley dumarkii joogay
dumar waayeele alxamdulilah runtii aad ugu mahad celinayay rakaabkii gaariga saarnaaba ka qayb qaatay isku dayay markaa fooshu runtii dee ma sugto marka qaarkood meesha dhakhtar iyo waxa weeyaan markaa imiga tusaale kale dee sheekh iyo berbere wax dhakhtaro u dhexeeyaa ma jiraan marka waxa dhacday markaa in dee umushii ay sugi kari weyday intii berbere la geynayay sidaa daraaddeed runtii ay baarkan u istaageen runtii darawalka iyo inanka la socdaa iyo rakaabkiiba si fiican bay u maamuleen way u shaqeeyeen ilmihii koowaad markuu dhashay oo Siciid runtii loogu magac daray inanka darawalka ahoo ilmihii noo dhashaya kadib waxa markaa ay isku dayeen inay ilmaha labaad berbere la gaarsiin karo waxa kale halkan runtii aan ka sheegaynaa labada mataanood ee halkan ku dhashay waxaan aad ugu faraxsanahay in khadra aan uga mahad celinaynaa inay ugu magac dartay darawalkii shirkadda ixtiraamka iyo waxa weeyaan sidii ugu adeegay markay runtii qiimaysay ee gobonimada leh waxa weeyaan inay waxaan dareemaynaa labada ubadhiba laba ubadaho bariga galbeed bahweynta bariga galbeed ka tirsanayeen waxaan u ballan qaadaynaa insha Allah in sidaa imiga waxa weeyaan ay uga mid noqdeen ay bariga galbeed uga mid noqdeen bahdeeda inay uga mid noqon doonaan oo markii corona aan ka warhayn doono ilaa insha Allah mustaqbalka ay noqon doonaan rajada aan qabnay inay maamulka shirkadda bariga galbeed ka mid noqon doonaan intaaba insha Allah waan ka warhayn doonaa waanan wada socon doonaa ilaahay idinkii familiga iyo khadraba waxa kale oo halkan runtii uga ballan qaadaynaa khadra inaanu shahaado siin doono shirkaddu ay leedahay runtii ay ku maamusayso oo mar kasta oo ay safar gelayso ama burcaha ka safarto ama hargeysa ka safarto ama meel kaleba ka safarto ama ceergaaba ka soo safartay shahaado mar kasta waxa weeyaan tigir free in shirkadda ku raaci karto oo runtii ay ku safri karto intaana runtii inaynu ugu bishaareyno xiriirkaasi wanaagsan runtii inaynu halka ka sii wadno alxamdulilah kulli waxaan halkan ugu sidnaa hadiyad yar oo aan ugu talagalay mataanaha Siciid iyo Sahra iyo umusha insha Allah aan doonayno inaan ku guddoonsiino hadiyadan waxaanu siin doonaa insha Allah Sahra yar oo insha Allah aan leenahay soo karo soo barbaar insha Allah waxa sidoo kale ayadana hadiyad u sidnaa Siciid yare aan isagana leenahay insha Allah soo kar oo soo barbaar waxaan sidoo kale hadiyada iyadana u sidnaa insha Allah umusha oo aan leenahay iyadana insha Allah ilaahay ha idin caafiyo oo ha idin ka dhigo insha Allah reer badan oo barwaaqaysan oo balaaran waxaan halkan iyadana insha Allah ku guddoonsiin doonaa lacag yar aan ugu talagalay muxuu ahaay xaqu safar maadaama ay safar dambe geli doonto insha Allah inay insha Allah safar ka sii dhigato aad baad naga guddoomi doontaa Sahray walaal jazakallahu khayr waxaan filayaa in insha Allah kulli ay tahay dhiirigelin iyo runtii farxad aan dareemayno runtii in macaamiisheeda mar walba aan diyaar u nahay runtii xaalad ay ku sugan yihiin baan la qaybsano shahaado yar insha Allah iyadana waxaan ugu talagalay waa dhiirigelin Siciid Cabdi Kaahin oo runtii ka mid ah darawaliinta shirkadda oo runtii shirkadda aad ugu mabsuuday qaabkii xariista iyo xilkasnimo lahayd oo ugu adeegay khadra iyo mataanaha si runtii gaarigiisa ku dhex umulay Siciid waxaan ku leenahay mar walba mas'uuliyadda runtii waa mid muwaadinimo waa mid bini'aadanimo iyo waxa weeyaan mid tii shirkadda runtii ay kugu ogeyd inaad fulisay aad baad u mahadsantahay jazakallahu khayr sidaas ayaa runtii shirkaddu ku ogtahay adiguna inaad ka sii badisaan doonina Jamaal Maxamed isaguna runtii waa inankii gaariga la socday runtii gawaaridan waaweyn shirkaddu waxa ugu yaraan 2 qof baa runtii oo shaqaalaha bay ugu tala gashay marka waa inankii la socday oo inta badan caawiyo customerka waa qofkii ugu horeeyay ogaaday muxuu ahaayeen xaaladda ogaaday khadra darawalkana u soo gudbiyay Jamaal aad baad u mahadsantahay sida wanaagsan aad ugu shaqaysaan waxa weeyaan macaamiisha shirkadda waxaan rajaynayaa insha Allah in halka ka sii wadaan marka koowaad waxaan mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo suurta galiyay inay si nabad ku dhashaan mataanaha ku dhashay safarkii ay ku jirtay umusha khadra oo ka timi waxaan kale u mahad celinayaa shirkadda oo shaqaalaheeda u tababartay si hufana uga qayb qaadatay shaqaalaheeda tababar yani khibrad ku dheehantahay u siiyay caawinta iyo garab istaaga duruufaha la soo wajaha macaamiishooda iyo rakaabka saaran gawaadhida waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin dhammaantiin maamul iyo shaqaalaba